toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhowaad 500 oo dad Soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka Norway oo la sheegay wasiirro ka socda dawladda Soomaaliya madaxa laanta socdaalka Soomaaliya in ay tageen halkaasi. Haddaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo guud ahaanba gobolada ku dhow ee kale ee wadamadaasi Yurub ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad Soomaali ah oo la sheegay in dib loogu celinayo waddanka Soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday. Si aan arrimahaas wax uga ogaano waxa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Oslo. Bal soo dhawow Baashe, ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. aad iyo aad baan sahla kaaga mahad celinayaa in aad ila soo xidhiidhay. waa gartay, bal waxaad iiga warantaa ugu horeyntii waxaad kala socotaan heshiiskan la isla dhex marayo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Norway inay wada gaareen. bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horeysa runtii waxaan jeclahay inaan caddeeyo sida aad xustay in wafdigaas Soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dawlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan Oslo. markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada Copenhagen oo shir hore ka soo dhacay sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd jaaliyadda Soomaalida reer Norway. runtii dad badan oo aan is ogeyn ayaa ku soo qulqulay hoteelkii ay deganaayeen ee Continental Hotel. halkaasaanu tagnay, waanu salaamnay, waanu soo dhaweynay. waxaan markaa anigu shakhsiyan u sheegay Gaafow oo aanu runtii horena noogu yimi nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahay reer Norway in ay dhibaatana haysato dad badan oo Soomaali sharciyada lagala noqday, qaarna dhalashadii Norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday. waananu u sheegnay, waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira wax jinsiyadii laga noqday iyo wax sharcigoodii lagala noqday. waxaanu u ballan qaaday mudane Gaafow inaan marnaba wax celina aanay u soconin. wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisaan ugu tegey, arrintana waan u sharaxay. waxaan ku wari dhibkaasaana haystay, arrintaas ka digtoonaada. marka aniga runtii shakhsiyan xildhibaan ahaan waajibkii saarnaa waan gutay, sidaana waan ugu sheegay. waa gartay. marka muxuu kuugu jawaabay haddii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo aysan qayb ka noqon dawladda Soomaaliya waqtigan ayadoo xaalka waddanka la ogyahay in dib loogu celiyay si qasaba? runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yidhaah qabta haddii lagu soo celiyana inaanay aqbali doonin. arrintaas ayuu runtii iigu jawaabay. anigu runtii waanan ku qancay. dhalinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay, iyagana sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay. dadka markaa uu la hadlayay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa socdaalku magaalooyin badan oo ka mida magaaladan oo dalka Norway. waa gartay. marka adinku maxaad ka dideen? adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay, waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dhibteeda. marka maxaad ogaateen, seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa? runtii anigu markii arrintaa waxaan la hadlay nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan, muddo dheerna arrimahan ku jiray. waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkoodii hawlahooda waday. waxaanan anigu ka codsaday shakhsiyan aan ku idhi maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaanu jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadkayagii madaxdayadii la kulanno, in shir naloo qabto. inkastay degdeg tahay, shir weyn yaa naloo qabana, shir yaroo kooban ha naloo qabto. wuu ku gacan sayday. waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno, wuu ku gacan sayday. waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibino ra'yigayaga iyadoo arrintan masiirkayga taaban. intaaba markuu runtii ku gacan sayday ninkaasi, dee madaxdayuna aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhahdeen waxaasi ma jiraan, ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxbaa ii baxay. dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway, TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo telefishinka NRK yaan la hadlay. arrintaana waan ka waraystay. waxay igu yidhahdeen arrintaasaa jirta baan idhi, maxaa ka ogtiin? anigana waa layla hadli waayey. waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway mudane Børge Brende oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyay ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Hadliye uu la joogay. isla markaa si toosa ayuu heshiiska uga warramay. wasiirku markaa wuxuu si toosa uga warramay inay heshiiska noocaasa gelayaan.
oo heshiiskaasi uu yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya. wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday. wuxuu sheegay in ay la kulmi doonaan wafdidu wasiirka cadaaladda, inay la kulmi doonaan wasiirka immigrationka iyo qaxoontiga, iyo inay la kulmi doonaan laanta sirdoonka. marka runtii ajandihii oo dhan waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo runtii ka qarin kari waayay. dadkuna waxay xaq u leeyihiin shacabkii inay ogaadaan wax kasta oo dawladdu ka shulayso. arrintan runtii qoraalkeedu uu soo bixi doonaa. waa gartay bal dhegeysta ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo. bal magacaa ku bilow walaalkiis waxaad noo soo wacday arrintan la xiriirta. assalaamu calaykum sahre iyo baasha waan idin salaamayaa. horta magacaygana waxa la yidhaha Mukhtaar Xasan Bacardhe. waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger. baasha uu garanayaa. arrinku markii hore sahray Norway Oslo iyo waqooyiga Norway iyo Bergen meel la yidhaaho annaga 5 saacadood noo jirta ayuu ka bilowday. hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolka yagii. maalin dhaweyd inan baa lagala noqday oo la yidhi Hargeysaad ka timi oo Facebook-gaagaanu jabsanay oo cadeymo noocaasa baan kugu haynaa. in maalin ka dambeysay wiil ka dambeysana waxaa lagala noqday inan isaguna ay yidhaaheen waqooyi baad ka timi oo gobolka Sanaag la yidhaaho baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslo tagtaa oo calankii Somaliland baad huwaneed oo calan xusbi wadan leeyahay baad huwaneed oo cadeymahaasaan kugu haynaa. shalay toolana 5 qoys ayaa lagala noqday baa la yidhi dabagal baan idinku haynaa, cadeymano fara badanna waanu idinku haynaa. 5 qoys marka anigu 2 qoys ayaan garanaya oo aanan jeclayn halkan aan ka magacaabo. 3 kale weli maan arag. iyaga laftigoodana wax ay kusoo eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobolka la yidhaaho ayaa ka timaadeen, lacagta halkaasa u dirtaan, dadkiinuna jaamacadahay halkaa kaga jiraan isku magacii oo 3 ayaa wadataan. marka halkaas ayaa dee xidhiidhku aanu ka helay bay yidhahdeen macluumaadka. waa garta marka dadkan aad ka hadlayso waa dad si siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inaysan ka imaanin malaha koonfurta Soomaaliya oo maaragtay hadda la leeyahay ma degano. markii la ogaadayna la yiri waxaa idin kala noqonaya sharciyadii. waxaa kaloo jirta iyana maxaan ku dhahday ama qofku koonfur ha ka yimaado ama waqooyi ha ka yimaade masale kaloo soo kordhay sharciga wadankan degenaanshaha 3 sano qofku ku qaataa markuu joogo. hadda waxay keeneen qofkii oo 3 sano joogay oo xareystay sharcigii barmantiga ee degenaanshaha inay sanad siiyaan oo yidhaahaan wadankaagii iyo xamar waa nabad ama wadankaad sheegatay waa nabad. marka halkaana sanad baa laga dhigay oo inamo badan oo aan aqaano 3 iyo 4 ba ayaa sanad loogu soo dhiftay. waxa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana iminka booliska ay soo saareen qofkii oo kuwa 20 sano joogay iyo kuwa 25 sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yidhaaheen meesha aad ka timi baasaboorka halka qofku Soomaaliya Muqdisho ugu qonaan jirtay uu shirtay wax la yidhaaho meeshaad ka timi ma garanayno meeshaad ku dhalatay. in baasaboorradii qofkii lagaga soo qorayo qofkii calqabad badan eerboodadii kala kulmayo taasuna way ka bilaabantay oo inamo badan baan indhahayga ku arkay oo yidhi looyaraanu qabsanaynaa haddii ay Soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkooga TV-ga wadanka aanu la hadallo iyo website-dada media aanu la hadallo. bal dee waxaana lagu haysto annagoo 25 sano joogno 2 jibna lagu keenay uu 5tii ina lagaga qorolay meeshaad ku dhalatay ma garanayno. waa dhibaato soo korodhay. la hadalay anigu afkayga kula hadlay 2 nin oo community-ga Soomaalida haysta oo Nuur nin la yidhaaha Ayuub oo aan ku yidhi maadaama maalin walba qof Soomaaliyeed oo la dhibaataynayo sharcigii lagala noqonayo inaynu midaysano oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qarxinayo internetka intaynu board soo saarno soo beritir garayno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno. tiina waxay yidhaaheen waxaan la xidhiidhnay Oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano Oslo baanu la hadalay waa lagu jira arrinkii laakiin dee wax walba haddaan sahray iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcad aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax orordaya waa baashe. halkan xildhibaano badan oo 3 baa ka soo baxay inan iyo 2 hablood. qof Soomaali u dhaqdhaqaaqayo oo kale maan arag. qof community oo hadlayo mid walba iska aamus buu ku leeyahay. marka arrinkan xaaladdan way xun tahay iminka meesha ay marayso. waad mahadsantahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto. bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhegeysta kale u gudbin. baasha haye.
walaal waxaan ku darayaa runtii arrinta marka ugu horreysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dawlad xag jira iyo dawladda conservative-ka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta marka waxay soo rogeen policy naxariis darro ah ama siyaasad naxariis darro ah oo ku wajahan dhinaca dadka agaasimka ajnabiga iyo nabadgelyo doonta soomaalida si gaara ayay taabatay ninka hay-adda agaasimka ajnabiga waxay samaysay tiim gaara waan u malaynaya inuu ilaa 10 qof yahay oo ka shaqaynaya sidii soomaalida sharcigooda dib loogala noqon lahaa marka runtii sida uu sheegay saaxiibkay aad bay u kala duwan yihiin dadka lagala noqday dad dhalashadii baa lagala noqday dad waxaa loo diidan yahay iyagoo 20 sano deganaa oo laba magaclayaala in baasboortka norwejiga la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa 30 ka badan baa ila soo xidhay waraaqahoodii soo diray gabadh Soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaaladan Oslo meel oo degan waxaa lagala noqday kadib markii ay ninkeedii codsatay inuu Norway yimaado ayaa waxa lagu yiri adiga ninkeedii waxa la weydiiyay tuuladii ay ka yimaadeen magaaladoodii aqoonteedu leeyahay goorma waxaasi ka dhaceen markay kala hadleen ba qofkii halkan joogay lagala noqday taasina sharciga ka soo horjeeda marka runtii dhibaato culus ayaa shacabka Soomaaliyeed taabatay dad badan oo Norway ah baa lagala noqday waxaan garanay in jaamacad dhigata oo halkan ilaa 7 jir ku timiyo lagala noqday imka sharcigii oo runtii jaamacadii nafsiyan aan dal kala lahayn aan fahansanayn oo Norway marka culaysku aad iyo aad u ballaaran yahay wuxuuna ka socdaa xagga dawladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka Soomaaliyeed runtii sharciga lagala noqdo oo halkan aad looga nacay waxa marka nasiib darro ah in dawladdeena iyo dadkeena Soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama fahansanaadna ma aysan fahansanaan waayahay baashe waad mahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhawo walaalkiis aadna Norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su'aal hadaad haysid magacaygu waa Cali Sheekh Usmaan Cali Wadani ku nool wadanka Norway waan salaamayaa baashe Muuse iyo Zahra iyo idaacadda VO-da fursadan qaaliga ay siisay waxaan anigu su'aali lahaa baashe Muuse haddii aan nahay Soomaali aan ku noolnahay Norway Soomaali Norwegian nahay aanan wax ku heshiinin ama aanan wax meel wada dhiganin maxaan ka qaban karnaa waxaan wax mar hore soo bilowday waaye soo socday in muddo soo socday dawladii Sheekh Shariif ayaa waxa yimid nin la dhahayo Cabdisamed iyo Gafow marka qorshuhu mar hore soo bilowday maanta ma bilaaban cudurkuna ka hortag uu leeyahay ka daba tag ma laha marka maxaa nala gudboon ayaa aniga ahaan su'aashaas qabaa assalaamu calaykum waa mahadsantahay Cali aad baad u mahadsantahay runtii haddaan kusoo dhawaado runtii Cali horta waa su'aal caafimaad qabtay weydiisay walaal waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka Cabdisamed iyo ay inoo yimaadaan mudane Gafow heshiiskan waa tii laga hadlay heshiiskan waxa ku qoran kiiba la dhaqan gelinaya marka runtii de mar walba waqti waliba waayihiisu leeyahay anigu markii aan taa ka dhiidiyay aan arkay mudaharaadku ilama muuqan inuu caawinayo magaalada Muqdisho ayaan ka degay xogna waan soo qaaday dawladana waan soo celiyay runtii arrintaasna sida la sheegay dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyay arrintiina waa la siiyay marka aniga aan kusoo dhawaada waxay la tahay shacabka Soomaaliyeed in marka hore isku duubnaadaan anigu inta waxay la tahay baarlamaanka Norway anigu xisbigaygu waa xisbiga ugu weyn waanan u gudbiyay qof contact person oo la xiriira la sameeyay xisbiyada garabka bidix waxay diyaar u yihiin arrintan ka hortagaan arrintan waxaynu kaga hortagi karaa laba dariiqo bulshada Soomaaliyeed inay wax samayso ama mudaharaad ay isku raacdo ama organ kale ha isku raacdo qoraal ha samayso in horta aynu inagu wax qabanno inagoo unity talabaad in in markaa baarlamaanka la xiriiro oo baarlamaanka komiteega ama guddiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo xisbiyada muxaafidka dawladda imika gacanta ku hayana iyo xisbigeedan mucaaradkina iskaashadaan isla markaana arrintan la jabiyo dhaqangelinteeda waa laga hortagi karaa waana la jabin karaa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajeynayaa in aanay taabagelin taasaanu ka shaqeynaa taasaana laga wada shaqeyn karaa waa gartay baashe bal waxaad iga warantaa marka tiro intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyay runtii horta shacabka Soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42 kun ayay ka badan yihiin waa dad aad iyo aad u badan waxa hadaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan horta kuntii 2012 wixii ka dambeeyay markii ay dawladda federaalka dhalatay Soomaalida sharciga waa lagu adkeeyay markii aad iyo aad baa loogu adkeeyay markii hore waxay ahayd gobolada bartamaha iyo koonfurta in si toos ah sharciga loo siin jiray waayo nabaddu ma sugnayn tii waa laga noqday waxa la yiri Soomaalida individual ama shakhsi ha loo arko shakhsigii markaa mudan baa la siinaya sharciga dad la siyaana way jiraan taasi markay timi
ayaa runtii dee soomaalidii saas loogu adkeeyey sharcigii taasi timi dabeetana waxaa jira dad kaleo iyagana looga shakiyo la yidhi markii aad sharciga qaadateen ayaydun been sheegteenoo kow soomaalidu waa shanta soomaaliyeed runtii waa la wada garanaya waa wada soomaali waa isku dhaqan waa isku diin waa isku af sheekadu taa maaha dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama kenyana ama jabuutiyana ama ethoobiyaana markii ay dalka soo galeen marka kaysaska noocaasa baaritaan baa ku socda waana dad gaara loo haysto oo dee runtii doodi doona marka isku soo duubo iyadoo soomaalida runtii integrationka ama dhexgalka iyagu aada u hooseeya marka dhinac loo eego oo dad marka laysku celceliyo 5 sannadood joogay dalkan yihiin dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfada lahayn mujtamaca la qabsan dadka cududa shaqaysa 38% ka yar tahay waxaasoo dhan ayaa runtii waxay samaysay waxoogaa nacayba oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dawlad cadowa oo xag jir ah ayaa dalkii qabsatay marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan soomaalida oo la doonayo soomaalida in aan naxariis loo hayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiiyo marka dad badanoo dee soomaalida waxbartina way jira marka taas waxaasaa isbiirsaday arrintaa isbiirsatay marka laysku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin dadka soomaliya marka taas waxaa noo sii dhex martay dawladda soomaaliyeed oo markii lixaad ay yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariista kalamaanaan kulmin oo runtii waxaa dhacday dad qofka soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imika dib u celin aan khasab ahayn baa jirta oo dad soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay marka waxba ka waayeen ay markaa dhoofeen oo ay tageen waddanka Belgium waxaa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub halkaa baasaboor baa la siiyaa dabeedna dalkii bay ku noqdaan xaq bay u leeyihiin marka dhibka noocaas oo dhan ayaa runtiina qabsaday waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed kaam ku jira oo 15 sano iyo 9 sano sharci helin waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda haligay isdilay iswal ciyaadu billah waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo nafsiyan u jiran oo halkan jooga marka runtii annagu kaleedahan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaataysan lagala hadlo oo la yiraahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata meelay haboonayn inay ka faa'iideystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celina wacyigelina wanaaga marka dawladdu intaa nagu taageertaanu doonaynay laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa marka waxaasoo dhan oo isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa imika ka jira waddanka Norway iyo wadamada Yurub iyo Scandinavian marka runtii taasa abuuraysa waagaag dhageysto kale ayaa khadka ku jira walaal magacaa ku bilow halkaa joogtid iyo waxa adiga walaaca arrintan ay kugu hayso iyo waxaa tahay magacaygu waa Hoodo Cabdi Jaama waxaan joogaa dalka Norway khaasatan Oslo marka wallahi arrintan aad ay ii saameysay iyo walaaca igu haysana lama soo koobi karo qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay waddan nabada yimid in la yidhaaho Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo caruurihii Soomaaliyeed maalin kasta maxay heetay badaha ay ku dhimanayaan waa lagugu celinayaa oo maxay heetay waddanka waa lagugu celinayaa hase ahaatee dawladda Soomaaliya aniga waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliya ka soo cartay Soomaaliya usoo tahriibay Yurub inay saxeexdo maanta anoo Yurub jooga meesha aan ka soo cararay oo dhibaatada ka jirta oo ana mas'uuliyadeeda qaadi kara maanta Muqdisho hadii la geeyo dawladda Soomaaliya airportka aadan cadde marka laga dejiyo ayaa la xaliileeyahay isdabar haddii mas'uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dawladda Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ra'iisul wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heetay ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada ka soo cararay inayna u saxiixin dawladaha reer maxay heetay doonaya in Soomaaliya ololeysa inay dadkooda ay ku daadgureeyaan waa gartay waad mahadsantahay Hoodo waayahay Hoodo waad mahadsantahay baasha ayaan dib ugu noqonayaa baasha adinku waxaad tihiin dadkii matalaya Soomaalida ku dhaqan Norway mas'uuliyiinta ahaa ood adiguba ka mid tahay marka maxaad u qaban kartaan dadkan dawladdii adiga aad ka mid ahayd haddii ay leedahay waa celinayna tii Soomaaliyana sida aad hadda leedihiinba ay iyagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raalli ka yihiin maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya runtii Hooda waa su'aal aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay Sahra runtii marka ugu horeysa horta Norway waa dal dimuqraadiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo ilaahay qadarkiisana lagu qanco waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu maraya wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado haddii aanu luqadda aqoon imika berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalay ku qaylnay maaragtay qofka bilayskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sita waxay siteen baalka gaashaan
iyo burar sitaba u tegi jiray laakiin imika taa waa la joojiyey kow qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay xuquuqdiisoo ah maaragtay inuu looyar qabsado xuquuqdiisoo ah in turjubaan loo qabto in uu markaa rafcaan qaato oo runtii waanu ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii lahaydno oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad u jilicsan oo simbal ah waxaanu kaloo la isku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan facebook ama bartan kulanka in laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda hadda wiil soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dawladda arrintaana aad baan ugu dhiga taagaynaa waanu caawinaynaa laakiin haddaan kusoo dhawaado annagu haddaan nahay anigu waxaan kamid ahay dadka soomaaliyeed dee xildhibaanada soomaaliyeed ee halkan jooga iyo dee community leaderska in badan baan kasoo shaqaynay ilaa 20 sannadood waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada soomaaliyeed ku isku duubnaato isku afna arrintan ka noqoto isku adinna ka noqoto hiil iyo hooba la isu geytaan waanu ka shaqaynaynaa waanan ognahay inay soomaalidu runtii isu hiiliso waana la isu hiilin doonaa insha allah qodobka labaad in baarlamaanka iyo dawladda anigu dawladdan kama mid ihi dawladdan waa mucaarad baanu nahay laakiin dawladdayda iyo xisbiyada kale ee bini-aadamnimada runtii ku fiican sida xisbiga christian dimuqraatiga iyo xisbiga kale liberaalka iyagana wadahadallaa noo socdo waan u tegi doonaa iyo xisbiga iyaga marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana dibcelinta noocana soomaalida soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin oo fulinteeda intaysan dhaqan gelin aan la gudin waayo soomaalida waxay tahay hadal oraahdiisuna waa meel dhaqangelintiisuna waa meel marka taasna waxaanu ka rajaynaa inaan is hortaagno waxaanu kaloo leenahay walaalaha iyaga maaragtay dawladda dee soomaaliya annagu dawladda federaalka ee soomaaliyeed runtii waxaanu halkan u joognaa waa nin masruufaya nin biil bixinaya nin wax baranaya waxa loo soo shaqaysanaya waa dalkii hooyo hadduu yahay nabadda haddii ay hantaan ay ka adkaadaan dadka oo dhan way soo maqanayaan inaan lagu soo degdegin oo dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag jaaliyadan lagu soo xidho baan iyagana kula talin lahaa waa garta ugu dambeyntii bal haddii aan ku su-aalo guuxa dadka Norway ku dhaqan gaar ahaan Oslo oo dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda ay isku xirneen oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto meelaha qaarkood dhibaatooyinka wadanka ka jira loo soo minguuriyay marka isku xirnaan la'aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaan runtii waan kala socdaa dee jaaliyadda soomaaliyeed waa jaaliyad ballaadhan oo runtii ilaa 42 kun imika kusii socoto walaal maadaama ay intaasoo dhan tahay jaaliyadda halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooye ka dhacday ayuunbaa halkana keentay taasina markaa qoyskii ayaa burburay waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada waxaa luntay kalsoonidii weliba waxaanu ognahay in imika la sheegayo in dad soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dawladda u shaqaynayo dadkii maaragtay ay u noqonayaan basaasiin ereyada nooca kalsooni darrada bixinta bulshada way ku jirtaa cid aanu anagu toos soo abaarayna ma jirto marka kalsooni darradaasu dagaalkii abuuray halkan aanu kala kulannay qurba joognimadu abuurtay ayaa jirta marka runtii way adag tahay in jaaliyadda la mideeyo laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii ilaahay idmo dhibaatada ayaana midaynaysa oo mar hore oo wiilal soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah waanu mudaharaadno 1500 qof baa mudaharaaday waraaqaanu geynay marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa de waanu badbaadinay marka annaga oo isku duuban waxaanu insha allah rajaynaynaa kolley waa lagama yaabo inaanu urur soomaaliyeed imika si degdega u dhisno marka arrintaan kala qaybino qayb dabdanisa ayaana soo waajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay waanan u midaysannahay waxaanu isku raaci doonaa insha allah inaan wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dawladda aan ka tirsanahay aan qayb ka ahay iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona iyo annagoo culimo awdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10 kun oo qof ay xubin ka yihiin adeegsan doona marka runtii bulsho dhisan baan nahay oo waxbarasho leh oo diin leh oo caqiide leh oo dhaqaale leh laakiin organkii iyo isku xidhkii iyo leaderskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira laakiin dee taasna insha allah waanu ka dadaalayna waxaanu doonaynaa inaanu isku xidhno dadka arrintanina ay noqoto midna midaysa aad baad u mahadsan tahay baashe waqti badanna khadka ayaan kugu hayay marka waqtigaaga waa kaaga mahad celinaya adiga mudan walaal kaasi waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee Oslo laga soo doortay ee dalka Norway isagoo ku sugan Oslo ayuuna khadka telefoonka igu warramayay guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo baashe muuse uu marti noogu ahaa ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa maskaxdiyo qalbiga waa mahal ku taal
مسقوا مليل مسكحتي وقلبك ومهل كتال كستو مع سدا موتكي دلايو ملاكي سويان كستو مع سدا موتكي دلايو ملاكي سويان حشينا كليين مريم مرنا كما معاشو وضاح تباغي أحنا بيدوحو ياي مامي حشينا كليين مريم مرنا كما معاشو مصروفكي أقومتيو بليستي مال قرن لما شاقين مهرشي مصروفكي أقومتيو استيمال قرن لما شاقين مهرشي تامان كقليو ديبو ملح سمال بها تامان كقليو ديبو ملح سمال بها